dhulkan in diin lagu haystaa ma fududa in dadaal iyo xoog iyo caqli la geliyo mooyaan istawgeedu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka waqti baa ku iman doona qofka diintiisa ku dhegani uu la mid yahay qof dhuxul daba haystoo kale dhuxul daba intaad hayn kartaa ma fududa taa macnaheedu waxa weeyaan إلهي قرآن وحقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله تذكر أنت هذا بدن هداد عضو إلهي جدك سوى قالوا من يبا إلهي لي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين تذكر أنت بدن مؤمن ما هبا إلهي لي سبحانه وتعالى سيدة دراد وسطك أما بيئة environment كديغان كنوع عصية مركا تكون نوع شهي wuxuu kaaga baahan yahay marka deegaan muslima deganayd awoodii iyo caqligii iyo lacagtii aad diintaada ku bixin jirtay ka badan inaad ku bixiso waayo waxay yidhaahdaan badda haddaad u dabaalato dhanka mawjadu u socoto mawjada ku qaadaysa markaa dabaasha waa fududay haddaad laakiin didda tayaar u dabaalato mawjada haddaad ka hor tagto dee markastoo aad istira hore usii socbad bay kuu soo riixaysaa marka xoog badan baad u baahan tahay inaad maxay mawjada aad ka hortegi kartid oo xagga kale aad u dabaalan kartid waxaa la mida markaa dhulka mushkilaadku ku badan yahay kuma noolaan kartid haddaanad xoog iyo caqli badan iyo tamar badan iyo adduun badan gelin diintaada waad fasaadaysa halka laga yaabo markaad waddankaagii joogtay in wax waliba fududaayeen مثلا tusaale ku siin waddankaaga markaad joogto waxaa laga yaabaa macsidu inay adagtay ninku inuu zinaystaa inuu dhib kala kulmay dadkaad ku dhex ceeboobe waxaad samee kan samee halkan ka baxal laakiin halkan markaad joogto waxaa laga yaabaa click on your telephone inuu kaa xigo inaad 4 number oo telefoonkaaga garaacdo inay kaa xigtaaba suurtagala waxaa laga yaabaa xaggaa markaad joogtay daacadu inay fududayd meel walba masaajid baa ku yaal meel walba jamac baad ka helaysay meel walba meel lagu weysaystaa baad ka helaysay markaad gurigaa ka baxaysa maanta xaggaan ku tukadaa kamaad fakeri jirin kuguma jirin waxa la xisaabiyo waayo meel kastoo salaada kugu qabsato waad helaysay qaabaad u tukanto halkanse waxaad u baahan tahay meelaad ku tukantaba heli maysa saa daraaddeed markaad guriga ka baxaysa waa inaad xisaabisaa war maanta intaasoo saacadood baad maqnaanaysaaye intaasoo salaadood baa kuu soo gelaysay xaggaad ku tukan doontaa qorshahay kugu jirtaa sawgeed xaggeennii markaad joogtay in la cibaadaystaa way fududayd in macaasi la sameeyaana way adkayd halkan markaad joogtose in la cibaadaystaa adag in macaasida la sameeyaa fudud xumaa la sameeyaa fudud marka inaad cibaado samaysaana juhdi badan iyo fakar badan iyo hanti badan iyo xoog buu kaaga baahan yahay macaasida inaad ka tagtaana go-aan adag iyo adkaysi buu kaaga baahan yahay haddii kale waxaad noqonaysaa kuwa uu nebigu ka warramayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi islaamnimadu qariib bay ku bilaabantay qariibka maxaa looga jeedaa dhul gaaleed buu ka bilaabmay islaamku markii dhul gaaleed bay ahayd madiinana dhul gaaleed bay ahayd nebiga iyo saxaabadii koowaad dhul gaaleed bay joogeen laakiin waxay ahayd dad dadaalayoo rabay dadkan inay bedelaan dhul gaaleed ha joogaane markay xoog ku bixiyeen waxay ku guulaysteen inay isbeddel sameeyaan inay dadkii islaamiyaan oo makiyo madiina ay noqdaan dhul muslim markaa nebigu wuxuu leeyahay islaamnimadu qurba qariibnimay ku bilaabantay mar dambana qariibnimada ku dhici doonta buu nebigu leeyahay waxa wanaag iyo khayrku uu sugnaaday kuwa qurabada dhabta a noqda buu nebigu u tilmaamaya oo waa kuwee baa la yidhi kuwa qariibka noqonaya waa dad yar laakiin saalixiina buu nebigu yidhi oo ku dhex nool dad badan oo aan saalixiin ahayn yacni waa dad yar oo iyagu wanaagsan oo wanaajinaya dadka badani wixii ay fasahaadiyeen ayuha alaxiba
qofka muslimka ee muqtaribka marka qofka muslimka ee dhulkan jooga tala aad u badan buu u baahan yahay taladaasi laba mid un weynay noqotaa mid saddexaad ma leh inaad xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaaga iyo tamartaadaba intay isu geyseen diintana xejisan kartaan badiilku hadday taasi dhici kari weydo waa inaa meesha ka timaadeen ku noqotaan taasunbay badiil noqon kara waayo kufri iyo macsidu marnaba badiil ma noqdaan